dhalinyaro oy dhammaanteen dhulku wuxuu dhaleeyay deemariya luuliyo wax dhambayga buuxe annaguna madabna oo dhignaa وايد سلامي maanta muuqaalkan waa mid ka duwan muuqaaladii hore gadaashay waxaad ka aragtaan waa dad aad u fara badan wali waxa ku sugnaana gobolka Gadow gaar ahaan dolow Soomaaliya waliba qaasatan xiriyaha ee dadka ku soo barakaceen abaaraha sida xoogan u saameeyeen maalmaha waxa ku mashquulsaneen sida dadkan u gaarsiin lahayn biyo u gaarsiin lahayn raashin ama guryo ugu dhisi lahayn anagoo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo isla qaatay run ahaantii maanta iyo maalmihii hore way ka duwan tahay maanta waxaan banaanka soo wada saarnay dadkii oo dhan oo aan maalmahan aan qoraynay tiradooda waliba aan diyaarinaynay wixii aan sii lahayn maanta waxaan bixin doonaa raashin waxaan sidoo kale bixin doonaa raashimo kala duwan sida bursa sokor saliid baco sidoo kale waxaa jira familo ayaga ka duwan familada macna dadka raashinka siinayna familo ka sii daran ayaa rabnaa in ayagana si qaas ah aan guriyo ugu dhisno wax u sameeyno runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dadka geesiyada ee sida dhalinyarada dadkan soo caawiyay ee lacagaha faraha badan in soo وقت حبين أيون نوجر سيدا عودة بوليني راركي أما عندنا راشينكي أنا وجارسي لهن دتكينا وبيجي عيان حد ساعة كيسان كسود دلدلينا وعرفنا أنا خفت هكذا وجود بينه وأفر ساحب النمو وقت حاضر كان سبحان ديار ونحن لا صغد إن عند الضلنا سادتكين وعاول لهن وعاوي حين سوق قبتين ويويني أبوي وما أنت أنا عم بيو أما راشين حرادو بمنايا مركينا أنت عشان وحمي من يدبسو waxaan baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed dadkiina caawiya soo Ilaahay caawiyo aad baan idin salaamayaa soo dhawaada maalin kale qurux badan wali muuqaalkii socdo laakiinse muuqaalkeena waqtigii hore ayaa maalin kale isku bedelay waad aragtay xalay meesha seexanay sababtoo xalay waxaan ku baranay isla kaamkan si aan dadkan garab ugu noqono oo aan raashinkoodii aan ka soo gudbinaynay aan dhahay wabiga ayaan halkaan keenay maanta oo dhol cadeynaya aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah waqti badan waxa ku taamayay qoysas gaaraya waraas qoys in aan wax gaarsiiyo farxada ay tahay wax aan ku faanayo waa wax ii noqon doonto hadhow wax taariikhda ii geli doonto oo aniga ahaan maanta Cabdullaahi Kashkow maxaa qabatay aan dhihi karo aniga intaas ayaan qabtay ku faraxsanahay kuma faanayo laakiinse qalbigii ayaan ka dareemay farxadda waana waxa cid walba oo jecel jaaniskan kale ka faa'iideysto una ahaantii sababta farxad waxay tahay dad aan xalahaysan waxay cunaan ama ay cabaan ayaan maanta waxaan helayaan waxay cunaan iyo waxay cabaan insha Allah waxaan rajeen doonaa in wax ka qurux badan isii heli insha Allah farxadeeda oo midaad qurux badan
waxaan filaa adigana inaad la faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay oo aqoon leh weligee yaalay maarey qaxooti Soomaaliyeed oo dhalinyaro isa soo xilqaatay waa ii maanta saxbiya intaad markay ka soo harto sugnaanta dhalinyaro oo dhammaanteen dhulku wuxuu naleeyay deemariya luuliyo wax dhammayga buuxe annagu